heesaa walba ma ahan aqoon-yahan balse kuwa la midka xidigan si sahlan ayaan ugu tilmaami karnaa aqoon-yahano xitaa haddii ay nagu madadaaliyaan dhanka fanka fanaaniinta raabka ku heesa ee Soomaalida waxaa ku dhex jira fanaan waqtigan masraxyada heesta oo ay u sii dheer tahay darajada uu ka gaaray dhanka waxbarashada maadaama uu dhawaan qaadan doono shahaadada PhD-ga waase kuma fanaankaasi heesaha raabka ah inuu ku luqeeyo soo bilaabay 11 sano ka hor kaasi oo ay hadda warbixinteena taabanayso Majif Warnex Market Drunk Makulatu Obed Bakhanta Scott Diah Alisnes Drista as a Paint Scott egada day follow ba as a Paint Scott isagu waa Jesse Boy inta aan kula wadaagin xaqiiqooyin laga yaabo in aadan hore uga ogeyn fanaankan like sar muuqaalkan una share garay asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale oo ku maadsan tahay taageeradaada ila janqaadkaaga taariikhda nolosha gabariyay baaldahaba ka kale koode tarabka tirsona riyadoodan hadee labade waxaa iska macquula inaad magaca Jesse Boy ku baraarugtay waqtiga dib ugu soo laabashadiisa saaxadda isagoo ku luqeynayo heesa raab ah oo qabsaday masraxyada qaybaha kala duwan ee dhalinyarada xiiseeyay heesaha qaabkaasi ahna ay heesihiisa ku wada jaasayaan ama fighter washayu ka dhicina surwaalka ani waa ika waxaan taganahay banaanka balse xasuusteena haddii aan u celino 11 sano ka hor xitaa aan sanado badan iska reebno oo aan u laabano 6 sano ka hor Jesse Boy sida aan horay idinkugu sheegayba wuxuu ahay fanaan mar hore soo baxay oo heesay 10 sano ka hor isagu wuxuu ahaa fanaanka kaliya ee raabka ku heesa ee Muqdisho ka dhaxaysay isagoo qaaday heesa raab ah bulshada ugu dhaxadkoodan baby kasaha ka baqin barkaadan billionaire joogay bakaran ka geynay baatiyo bil kalkan saari halkani waa Muqdisho fanaankan waa Jesse Boy waxaan marqaati ka wadanahay Muqdisho waqtigan oo ah sanadii 2014 kama jirin fanaan raab ku heesa dhalinyarada xiiseysay heesaha raabkaana waxay Jesse Boy u arkayeen ruux ay wax ka baran karaan ninkan oo TikTok waa ka aragteena u maleynaa qadarkeeyo iyo ninka la yiraahdo Ken Arash iyo oo gadaashiisa taagan asoo heesay marka mar hore uu fanka soo galay wiilkan waxa xasuustaa ayada oo Soomaaliya hadda see tahay ayaan ahayn Muqdisho ayaan ahayn oo lisdab saarayo inkan dhinac kale uu heesi jiray muuqaalka heestan waxaa kula jira qadarkeeyo oo waqtigan ahaa fanaan aad u daayar kaasi oo ay saaxiibo dhow ku ahaayeen muqbilanta Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya Jesse Boy baby boqortooyada aysan building ha ku fikirin waxyaabo kale tani waa halhayska fanaanka loo garnoogay Jesse Boy oo aan ahayn magaciisa dhabta ah oo ay waalidkiisu ula baxeen ama ugu qoran shahaadooyinkiisa waxbarashada balse sidee ayuu magacan ku baxay muxuu yahay magaciisa saxda ah ee ku qoran baasaboorkiisa magacayga waa Jesse Boy magacayga rasmiga waa Cabdiraxmaan Alxubi oo ku magac dheer AKA Jesse Boy wax kale tagu baxin dhowr mar hore uu soo hadlay marka waxa waaye magacaas wuxuu ii baxay weyna waa South Africa Cape Town waxaan igu baxay waa delivery boy Jesse Boy markii uu fanka ku soo biiray ilaa iyo waqtigan si joogto ah uma uusan jirin fanka balse waxa uu watay noloshiisa gaarka ah waxaana uu ahaa arday ka baxay jaamacad waqtiganna ku jira diyaarista masterkiisa labaad maraan hor dhigay su'aasha halkeebaad ku maqnayd waxa uu Jesse ugu jawaabay sidan Jesse Boy wax kale tuu meesha ku maqnaan wuxuu ku maqnaa was study waxbarasho ayaa ku maqnaay alxamdulillah shukr rabbil alamin hadda waxa ii soo gabagaboobay second master degree midka kood waa dhamaaday kii labaad hadda dhamaad ayuu maraya insha Allah taala waxaan rajaynayaa mustaqbalka after 3 years marka experience-gayga aan earning garayo inaan noqdo PhD degree PhD candidate dad ilaahay mahadin Jesse heesaha uu ku luqeeyo waa kuwa raabka ah fanaaniinta heesaha raabka ku luqeeyana waxa iska caadi ah in saaxadda ay ku wada tartamayaan inta badanna taageerayaasha ayaa u kala safta oo heesahoodu ku tilmaamay inay ku socoto fanaan laga yaabo inaysan bahaysta ku foorarin balan waxaan kugu qorashada waxaan kugu duba sida chicken xogan walba qaadana waan jibin adoo ka socotona ilin awooda sheegatana kulli waxaan ka dhigaya filin haddaba Jesse Boy waa kee fanaanka uu tartanka hadda kula jiro
hore waxaan u dhahay kuma jiro tartan ama captain because waxaan nahay geesiga birta ee gala dhirta cidaan tartan aan kula jiro ma jirto just waa only myself marka saaxadda heesaha la joogo waa iska suuragal in fanaaniintu ay isqabqabsadaan bal maxaa dhacaya haddii fanaaniinta raabka ku heesa ay qaarkood isku dayaan inay daadaansadaan oo ay hees ku soo karbaashaan Cheesy Boy isagoo awood mu u leeyahay inuu dagaalamo يعني أنا عجاه وجرع أقولك على ترتوسه هز دم بس أنا سوق عن مرة لكن هذا قفة كسيجي مرة لكن قف كي يوسك سويجي ديو وتترى برا أيوة تترى برا dagaalku ma jirtid kii isku ka soo jeediyay caadi oo titreebaa dagaal عادي أنت أدرتان ودرا برا yeelkeeda fanaanka sida dhow loogu yaqaan magaca Cheesy Boy ayaa hadda ku jira waayo qurux badan haddii ahaan lahayd dhanka fanka iyo dhanka waxbarashadiisa haddaba adiga muuqaalkan daawanaya maxaad u rajaynaysaa Cheesy Boy mana qiyaasi kartay in Cheesy Boy uu dhanka waxbarashada heerkaasi ka joogo waxaan ku dhiirigelinayaa saaxiib keep going waxaan ku leeyahay walaalkii keep your head up mar walba madaxaada kor ha jiro brother hore u soco waxaa tahay saaxiibka bulshada waan ku baahannahay mar walba inaan maxalla ishaq aan zoomkeena aad ku jirtid walaal dhanka sports ka noqoto dhinaca music fanaaniinta noqoto walba maadaama qof walba saaxiib ala tahay shaafiin walaal waxaa ku leenahay keep up this is Cheesy Boy boqortooyada in the building one love ilaa dhamaadka haddii aad nala joogtay haddii aad xiiseynayso in xogaha qarsoon ee fanaaniinta Soomaalida aan halkan kugu soo gudbiyo ha hilmaamin inaad muuqaalkan like saarto una share gareyso asxaabtaada si aan halkan kugu soo gudbiyo xogaha qarsoon ee fanaaniinta Soomaalida oo aan muuqaalo kooban idinkaga soo diyaarin doono ku mahadsan tahay taageeradaada iyo la jaanqaadkaaga